مسؤولينta gobolka Togdheer kuwa degmada Burco xildhibaano madax dhaqameed ganacsato eheladii marxuun Yuusuf Muuse Cawid oo shalay dablay hubaysanay ku dishay magaalada Burco ayaa ka qayb galay aas qaran oo loogu sameeyay magaalada Burco marxuunka مسؤولينta ayaa cambaariyay falkii foosha xumaay bartamaha magaalada Burco dilka badharka loogu geystay marxuun Yuusuf Muuse Cawid alla naxariisto janno firdawsa ka waraabiye iyagoo tacsi u diray qoyskii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliland waxayna mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ka hadleen dhacdooyinka noocan ah iyagoo sheegay inay gacan bir ah dadka falkaasi oo kale ka geystay gobolka iyagoo qoyskii marxuunka iyo cid kasta oo daawatay ka raali galiyay muuqaal si khalad ah oo anshaxa warbaahinta ka baxsan looga duubay marxuunka markii la dilay isla markaasna ay ku raad dadkii muuqaalkaasi ku baahiyay baraha bulshada sidoo kalena ehladii marxuunka Yuusuf Muuse Cawid rabbi naxariistii jannatu firdawsa ka waraabiye ayaa xukuumadda iyo maamulka gobolka Togdheer ku amaanay qaabka ay uga howlgaleen falkaasi ilaahi wa inna ilayhi raaji'uun ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu ilaahay naxariistii janno ka waraabiyo alxamdulillah mar haddaynu gacan ku dhiglayaashii hayno dilkaa geystay waxbay ka duwan yihiin maanta waa ka gamaynaa taliisi aydida iyo cid kasta iyo xeeraalintii in si degdeg ah dacwadooda loo soo gabagabeeyo eedooda loo soo dhammaystiro si degdegana maxkamad loo soo taago waa wax inagu uguboonaynu baryaha arag caasimad xigeenkii qaranka in xadhca 10 barkii subaxnimo dil badheera rag hubaysan ay ka fuliyaan wax inagu cusub weeye haddaynu taa wax ka qaban weyno nin walba sirriitiisa gudihiisa lagu dilayaa waxa aad falxun baa dhacay shalay laakiin suurtagal noqon mayso dibna u dhici mayso waa ka dadaalaynaa insha Allah biidnillah Facebook meedka la dhigay waxaan u sheegaynaa cid kastoo ka xumayd inaanana ka xunnahay cid kastoo ka xumayd oo soo hadlayso gudihiisa dawladda ka soo hadlaysay inaanana ka xunnahay ciddii falkaa samaysay meedka gelisay Facebookana tallaabo sharci ah laga qaadayo Yuusuf Maxamed Cawil موسى وحن إلهي سبحانه وتعالى ويديننا إنه جنة فردوس كورابيو إنا لله وإنا إليه راجعون مرحومك يوسف موسى عويل إلهي وحن وقبرينا أن إلهي قبرك ونوره عنك حق درن بعد شيء إلهي عول خير قبرها وبدلوا الكيسي وعد ما شاء الله حدين لما يهيد إنا لله وإنا لله راجعون إلهي مرحوم كاغيريودي أين ما أنت آسكي ستاغن هاي إلهي جنة فردوسها كورابيو إلهي يقول رجيني إنه أهلكي يا قرابتي يا إنك بسمري إيمان إنك سيو إن إلهي قبرك ونوري كورابيو موسى dhamaanteena way naga wada baxay nigo ku hadlay magaca uqaasha gobolka Togdheer waxa weeye waanu ka xunnahay dilka waanu ka xunnahay antaasi tiraanya loo diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay marxuun Yuusuf Muuse Cawil waxaanu ku qaracsanahay oo raali ka nahay ilaa barasaab ilaa maayir ilaa taliye qaybeed ilaa ciidanku sida ay u hawlgaleen ee gacan ku dhiglayaashu u soo qabteen baanu ku qaracsanahay sida aaska looga soo qayb galayna ee aaska qaranana waa ku mahadsanyihiin waanu ku qaras ilaahay baa mahad ugu mahad celinaa waxaanu kala oo doonaynaa sida madaxdu u sheegtay haddii la doonayo beeshu inay kala nabad gasho si degdeg ah waa sharciga loo waafajiyaa waxay ka helaan lagu qaadaa marka haddaynu waafajino waygooda oo dadku ay sharcigooda qaataanna intana kalena awalba ninka aqligiisa hagaya ninka aqliga ahayn cabsida hagi doonta waa dhacdadii ugu naxdinta badneed ee sanadkan gudihiisa ka dhacday gudaha magaalada Burco Cabdirasaaq Cabdullaahi Sheekh Absa Korto telefishinka madaxa banaanay Soomaaliland Space Channel gudaha magaalada Burco